xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed iyo agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda laanta shanaad Ibraahim Xuseen Yuusuf Sheelare ayaa maanta gaaray deegaanada kala ah Abdaare, Miirqooley iyo Aboorey ayagoona kula kulmay ciidamada deegaanka iyo bulshada ku dhaqan deegaanadaas. Mas'uuliyiinta ayaana ciidamada iyo dadka deegaanka ay ku soo dhaweeyeen deegaanada ay gaareen ayaana ciidamada iyo dadka deegaanka sheegay in ay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka ah ee khawaarijta Al-Shabaab deegaanada jiinka ah oo ay cadowga mar waliba ka soo gudbaan, sheegayna inay diyaar u yihiin in ay ka saaraan agajiinka. ciidankii deegaanku waa kana waa niman macawisleeya deegaankaasay ay ka howlgalaan meeshaasay ka howlgalaan xabadooda iyo qorogooda iyo waxooda inay cunaan ay ku howlgalaan muddo adiga sanad ku dhadhaway ku howlgalayeen ilaa halgan ilaa buulburta intay ka dhaxayday ka howlgalaan deegaankaasna waay tii khawaarijta meeshaas meydkooda la soo dhigay waadigaas iyaan Aboorey ee ka kacday fadhiga maalikii iyo barga ka dhaxle nin gurgiisa jiiftay kuma jiro nin walba qorigiisa garabka soo gashay 15 sano iyo madaxa lugta ugu istaageen heer waxay gaareen inay maanta raashinka qoftu gadanayo ee ilaahin hadii ay ku rooyaan lacagtiisa kala baxayo rubcaan bariis iyo rubcaan sokora iyo kartoonka baasta ka badan ma qaadi kartid warmada ay gadaa ma qaadi kartid leeyahay intaas wuxuu uga dalnayahay inuu bulburta gootuumiyo dadka muslimiina oo dhuuntooda jaro heer waxay gaareen ninku baabuurku soo gato yaad kala tashatay leeyahay waad maqlaysiin heer waxa ku soo xigtay gabartii dhiibku yiri aad ku soo xigtay waxa hadda ayadoo joogto naagta ma u tagi kartid ayaan ilaahay laga gacan siiyay in la yoomo oo shabaabaan raacdiina leeyahay wax ma tartay shabaab ama webiga xagga sigaali karnaa shabaab webiga xagga ma sigaali karnaa in la sheego shabaab waa nafiya maalan ku bixin leeyahay maalin kasta laga fiican yahay shabaab ama webiga xagga sigaali karnaa cadowga iska celino naf iyo maal aan ku bixino dawladda waxna siisan aan kaalmaysano hadayna siinne naftayna iyo xandadayna iyo xoolahayna u hurno. Agaasimaha iyo xildhibaanka ayaana dadka deegaanka u ballan qaaday in ay ka caawin doonaan sahayda ciidanka iyo rasaasta oo ah kuwa ugu daran oo ay ka caawdeen ciidamada deegaanka ayagoona ka codsaday in ay mid noqdaan si cadowga looga guuleysto. ayaga dhan wada baahano xoolana haysano hantina haysano xoolihiin raba inay kula dagaalamaan waa nimankaas oo nimanka kabano la isku keeno meel laga keeno la aqoon awood hadii la dhawa ka awood badan tiino markasta webiga gudbisiino markii laga soo noqdana waa idin ka soo daba noqdaan ka soo daba noqodkaas maanta wixii ka dambeeyo ma iska jooji karnaa inay naga soo daba noqdaan meeshooda ma ku hayn karnaa nimanka webiga sidii noogu soo gudbaan ma u gudbi karnaa intaas aan laga rabaa oo kaliya hadda marka aadno hadda inteena aadno waa si ordaan webiga ka gudbaan hadda webiga markay ka gudbaan ka soo noqono guriga ku soo noqonana oo ku soo noqotiina waa idinka daba imaanaan waa soo dhudhuumanaan marka maanta go'aan aan qaadano maanta wixii ka dambeeyo nimankaas webiga yaan uga soo harin webiga markii la gooysiino webiga ugu daba gudubno intaas ma samayn karnaa intaas aniga idin kula dardaarmaa ciidan xawaadle in ma degan laakiin waa lagu kala badinaya Soomaa waxaan rabnaa xawaadlaha aagaas degan marada dhanka u xiran inuu dhanka kale u xirtaan rabnaa markaan baarna cilada meeshan ka jirto waxaan soo ogaanay wiil iyo qore iyo cudud inaysan ka yareen dadkuna ay dagaalamayaan cilada jirta ay noqoto hoggaan la'aan webiga waxaan u kala qaybin laba qaybood booco wixii inta ka soo jiro bulburta ah iyo booco wixii xag ka jiro baladweyne ah cilada webiga haysato waxay noqotay hoggaan la'aan taa iyada aan u soo safarnay bulburtaana u joognaa ma la socotiin taa iyadaan u joognaa taa iyadaan u soo safarnay taa iyadaan rabnaa inaan xal ka gaarno waxaan rabnaa colka rasmiga ee xawaadle ee meeshan jooga markaan ogaano diyaar garow sameeyno
si sax aan u dagaalano si sax aan isku run sheegno cadowna hor istaagi kara meesha ma joogay 4 wiilo beenta loo soo sheegay sidoo adeer uu yiri oo marka xabadda ku bilaabataba mataga afka ka deenayo oo iyo kala tumaya xabadda ridayo waxaan rabnaa horta webiga hadda uu buuxsamay qoryaha ay haystaan waa qoryihiin soo saasma saastoo ah kuwa ugu daran oo ay ka cawdeen ciidamada deegaanka ayagoona ka codsaday in ay mid noqdaan si cadowga looga guuleysto. Askariya Cali Raage, warbaahinta qaranka, deegaanka Aboorey.